الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى وشفيعنا المقتفى وعلى آله الشرفاء ومن تبعهم بالإحسان والوفاء. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الله جل وعلا ayaa mahad iska leh naga dhigay dad muslimiin ah, haddana naga dhigay ummadii nabi Muxamed sallallahu alayhi wasalam. waxaan ka hadli doonaa biidn illaahi jala wacala maada yajibu cala almuslimi fi zamani wabaa'i corona. muslimka maxaa ku waajibayo zamanka cudurka corona markii lagu dhex jiro. cuduro walbo wax ayaa ku waajibayo muslimka. marka hadda cudurkan corona ayaa caalamka oo dhan wareegayo, muslimka maxaa ku waajibayo oo laga rabaa. marka muslimka waxaa waajib ku ah an yaclama yaqiinan ana hada wabaa'a corona jundun min jundi illaah. muslimka inuu yaqiiniyo, hubaal ahaan inuu u yaqiiniyo cudurka corona inuu yahay ciidan ciidamada ilaahay ka mid ah tabaaraka wa tacaala. yusiibu bihi man yashaa wayasrifuhu can man yashaa. cidou doono ayuu ilaahay ku salidayaa cudurkaas, cidou doonona wuu ka leexinayaa. muslimka waa inuu ogaadaa yaqiin ahaan weliba cudurka kan in loogu talagalay lilindaari waatakhwiif, dadka in loogu digo, in laguna cabsi geliyo. waatan ilaahay uu leeyahay jala wacala: wamaa nursilu bilaayaati ilaa takhwiifa. aayadaha anaga wax kale uma dirno ilaa cabsi gelin maahane. dayaxaa madoowaanayo, qoraxdiyaa madoowaanayso, dhulgariir baa dhacayo, cuduro iyo wabaa baa imaanayaan. ma arkaysaa waxyaabahaasoo dhan waxaa loogu talagalay dadka in lagu cabsi geliyo, say ilaahay ugu toobad keenaan tabaaraka wa tacaala, si ay ilaahay ugu laabtaan tabaaraka wa tacaala. waatan ilaahay uu leeyahay jala jalaaluhu: dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi nnaas. fasaad ayaa daahiray, bari iyo baxarkaba fasaad ayaa kasoo daahiray. maxaa keenay? bima kasabat aydi nnaas, dadka gacmahooda waxay ay ku kasbadeen. haddaba fasaadkaa muxuu u daahiray? liyudiiqahum bacda aladii camiluu, inuu dhadhan siiyo wixii ay camal faleen oo xumaan ahaa qaarkiisa inuu dhadhan siiyo. kulli xataa ma aha xumaantii ay samaynayaan dhammaantiisa lama dhadhan siinayo abaalmarinteedii. xumaantii ay sameeyeen qaar ka mid ah ayaa abaalmarintiisa la dhadhan siinayaa. ujeedadana waa maxay? lacallahum yarjicuun, inay ilaahay usoo laabtaan tabaaraka wa tacaala, macaasidoodii inay ka toobad keenaan, xumaantii ay ku jiraan inay ka soo laabtaan. ayib, qofka muslimka ah waxaa waajib ku ah marka aayadahaasoo kale markuu arko in cabsi ay gasho, baqdin inay gasho. laakiin maca alasaf dad qaarkiisa ayaad waxaad arkaysaa aayadan oo kale ama wabahan iyo cudurkan inuu ku jeesjeesayo, wax lagu qosqoslo ay ka samaynayaan, kaartoono ay ka samaynayaan. arintaasoo kaleetana waxaa weeyaan arin loo baahan yahay ma aha. ficilkaasoo kale waa ficilkii reer caad oo ilaahay uu markuu ka hadlaayay uu yihi subxaanahu wa tacaala fi suurati alaxqaaf: falamaa ra'awhu caarida mustaqbila awdiyatihim qaaluu hada caaridun mumtiruna bal huwa ma stacjaltum bih riixun fiiha cadaabun aliim. ilaahay jala wacala wuxuu leeyahay markay arkeen daruurkii isagoo gudboonaanayo, ma arkaysaa, ayaa waxay yihaahdeen haadaa caaridun mumtiruna, kani waa daruur soo gudboonaanayo, wuuna roobeynayaa, roob ayaa ka soo socda. markaas xilli kulaalna waa lagu jiray, guryahooday ka soo baxeen, meelihii ay ku jiraan bay ka soo baxeen, daruurkaas hoostiisay galeen si roob iyo waxyaabahaas ay u helaan. markaasaa waxaa lagu yidhi war waxaan daruur ma ahee, roobna ma watee, waxaan waa cadaab, war ilaahay ka cabsada. maya waxaan roob bayna siinayaan.
ilaahay wuxuu yihi bal huwa ma stacjaltum bih, waa waxaad degdegsanayseen, cadaabkii aad degdegsanayseen weeyaan. riixun fiiha cadaabun aliim, waa dabeel ku sugan cadaab wax xanuunjiya. marka aayadahaas iyo cuduradaas oo kale markay yimaadaan, waxaa waajib ku ah qofka muslimkaa inuusan ku jeesjeesin, waxyaabo lagu qoqoslana inuusan ka dhigan, bas ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu ka boqo. waa takhwiif, waa indaar, waa lisugu digayaa, waa lisugu cabsi gelinayaa. cabsi inay gasho ayaa la doonayaa qofkaasayti. ayib, walidaalika waxaa la yidhaahdaa man lam tuqaribhu الshadaa'idu min allahi tacaala qala an tuciidahu الnicamu ilayhi. qofkii dhibaatooyinka ilaahay aan u sii dhoweynin, dhibaato markay dhacaan qofkii ilaahay u dhowaan waayo, nicmooyinka ilaahay uma sii celinayso qofkaas. nicmo hadduu ku dhex jirana ilaahay uma dhowaanayo qofkaas. marka dhibaatooyin markay dhacaan, ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala falowlaa id jaaءahum ba'suna tadaracuu walaakin qasad quluubuhum wazayana lahum الshayطaanu ma kanuu yacmaluun. ilaahay wuxuu yihi jala wacala falowlaa id jaaءahum ba'suna, baaskayaga markuu u yimid, cadaabkayaga markuu u yimid, tadaracuu may tadarucaan, may dhulka isdhigaan, may ilaahay ka baqaan, may ilaahay isku bihinbihiyaan, may ilaahay isku duleeyaan tabaaraka wa tacaala. walaakin qasad quluubuhum, laakiin quluubtoodii ayaa ingegtay. waxay isku duleen waayeen waxay tahay, oo ilaahay ay isku tadaruci waayeen ayaa waxay tahay, quluubtoodii ayaa ingegtay. wazayana lahum الshayطaanu maa kaanuu yacmaluun, shaydaankana wuxuu u ziineeyey wixii ay camal falayaan buu u ziineeyey. ayib, qofka muslimka ah waxaa waajib ku ah an yamla'a qalbahu bicadamati اllah, qalbigiisa inuu ka buuxiyo ilaahay weynadiisa jala wacala. an yamla'a qalbahu bijalaali اlmalik, qalbigiisa inuu ka buuxiyo allihii boqorka ahaa weynadiisa tabaaraka wa tacaala. an yamla'a qalbahu bijamaali اlmalik subxaanahu wa tacaala. mar walba qofka muslimka waxaa laga doonayaa inuu ilaahay u magan galo, ilaahay inuu magan galo, ilaahay albaabkiisa inuu istaagnaado, ilaahay inuu magan galo subxaanahu wa tacaala, ilaahay xaggiisa inuu u cararo, ilaahay inuu u toobad keeno. wahal lanaa baabun gayra baabih, albaab aan ilaahay albaabkiisa ahayn maan leenahay anaga abadan. ilaahay albaabkiisa ayaa noo albaab ah, meel kaloon garaacayno ama meel kaloon aadayno ma jirto. allah tabaaraka wa tacaala ayaa weynaantiisa qalbigeena ka buuxinaynaa. allahaasayte waxa weeyaan haddaan jeclaano oo haybadiisa, weynaantiisa, boqortinimadiisa qalbigeena aan ka buuxino, oo allah markaan xusayno tabaaraka wa tacaala, waa isimka qofka markuu cabsanayo nabadgelyo uu helayo. allah waa isim qofkii faqiirka ahaa markuu ku dhigo uu gani noqonayo. allah waa isim qofka la dulmiyey ilaahay uu u gargaarayo subxaanahu wa tacaala. allah waa isimka dembiyada lagu dhaafayo sababteedii. allah waa isimka naxariis iyo nafaxaadka loogu soo dejin dalba. ayib, hadaba qalbigaagii waxaad ka buuxisaa ilaahay weynaantiisa jala jalaaluhu, alraxmaan الraxiimi ahaa, almaliki اlkariimi ahaa subxaanahu wa tacaala. haddii sidaa lagaa helo, yakfiika allahu jala wacala min shari corona, ilaahay wuxuu kaa kaafinayaa tabaaraka wa tacaala cudurka koroonaha shartiisa, ilaahay baa kaa kaafinayo subxaanahu wa tacaala. haddaba maxaa loo argagaxayaa, maxaa loo welwelayaa, maxaa loo walbahaarayaa, maxaa sallim اlamra ilayh, arinta ilaahay u dhib tabaaraka wa tacaala. fawwid اlamra ilayh, arinta ilaahay u bandhig. fasatadkuruuna maa aquulu lakum waufawidu amrii ilى اllah ina allaha basiiru biاlcibaad. arintaydii ilaahay baan u bandhigayaa dheh, ilaahay addoomihiisa wuu arkayaa tabaaraka wa tacaala. ilaahayna sharta soo socota iyo wax walboo xumaana ilaahay isagaa kaa ilaalinayo. fawaqaahu allahu sayi'aati maa makaruu. ayib, wallaahi walaalayaal, low khaafa annaasu min allahi jala wacala cushura maa yakhaafuuna min corona lasalimuu minhu wa min kuli karbin. wallaahi baan ku dhaartee, low maanta dadka cabsi
haddii laga heli lahaa say koroonaha ay ugu baqayaan 10 jibaar hal meel, macnaha cushurkiisa 10 meel leh haddii cabsi laga heli lahaa, say koroonaha ugu cabsanayaan 10 meel hal meel hadday ilaahay ugu cabsan lahaayeen tabaaraka wa tacaala way badbaadi lahaayeen. maanta nin walba caalamkao dhan wuu argagaxsan yahay, corona cabsi, walwal, walbahaar. awoodoodii ayaa la tusinaya, kuwa isqaadqaadayo oo awooda kufaanayo, muslimiinta baabi'inayo, muslimiinta laynayo, ma arkaysaa, oo daawo iyo wax walba awood meel sare ayaan ka gaarnay dhahayaan. kibirkoodii shiinaha 2 bil ka hor waa tii uu yiri yaa naga awood badan anaga, waa qowmu caad hadalkoodii oo kale, man ashaddu mina quwa, yaa naga awood badan. ilaahay baa u jawaabay subxaanah, awalam yarow ana allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhum quwa, miyaynan arkaynin allihii ayaga abuuray inuu ka awood daran yahay subxaanahu wa tacaala. cudurkan ilmo qabatada ah aan isha lagu arkaynin ayaa ilaahay uu ku saliday tabaaraka wa tacaala, markaasay argagaxayaan, la argagaxayaan, meel ay adan iyo meel kale ma laha. ayib, ilaahay ciidamadiis way fara badan yihiin walaalayaal, wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huu, ciidamadii ilaahay cid ogaa karto ma jirto ama cid garanaysa ma jirto ilaa isaga maahana subxaanahu wa tacaala. haddaba walaalayaal, waxaa muslimka waajib ku ah ilaahay inuu u cararo tabaaraka wa tacaala, ilaahay inuu tala saarto, ilaahay inuu ku tiirsanaado, ilaahay xaggiisa mar walba inuu u degdego, ilaahay inuu gacmaha u taagto, ilaahay inuu bariyo, inuu toobad keeno subxaanahu wa tacaala, ilaahay xaggiisa u cararo. ilaahay baa ka kaafinayo. alaysa allahu bikaafin cabdah, alaysa allahu bikaafin cabdah, ilaahay adduunkiisa miyuusan ku filnayn? balaa, ilaahay adduunkiisa waa ku filan yahay weeyaan. saas darteed walaalayaal, falaa malja'a walaa manja lanaa min hada alwabaa ila alfiraaru ila allah, ila alfiraaru ilayhi jala jalaaluh. cudurkan iyo balaayo walbo meel aan uga badbaadi karno ma jirto ilaa ilaahay xaggiis inaan u cararno maahana subxaanahu wa tacaala. fafiruu ila allah, fafiruu ila allah, fafiruu ila allah, ilaahay xaggiisa u carara tabaaraka wa tacaala, meel ka laga aadayaanba jirinba. ayib, haddaba walaalayaal, muslimiinta waxaa waajib ku ah nin walba inuu ixtisaab la yimaado, nin walba inuu ilaahay u tadaruco, nin walba inuu ilaahay isku bihinbihiyo tabaaraka wa tacaala. qofka muslimkaa ma walwelayo, ma walbahaarayo, wuxuu rumaysan yahay wax walboo dhacayaan ilaahay qadarkiisa inay ku dhacayaan. ma walwalayo, ma walbahaarayo, waa kalsoon yahay, ilaahay buu ku kalsoon yahay subxaanahu wa tacaala, qalbigiisa u degan khalaas. maxaa yeelay wuxuu aaminsan yahay, waclam ana alummata low ijtamacat calaa an yanfacuuka bishayin. ogow, nabiga sala allahu calayh wasalam waatuu ku yihi ibnu cabaas, isagoo wiil yar ahoo koray ah, ayuu ku yidhi, waxaad ogaataa haddii ummadoo dhan ay isugu yimaadaan inay wax kuu taraan, shay ay wax kuugu taraan, wax kuuma tari karayaan ilaa shay ilaahay uu kuu qoray maahe. sidoo kale hadday dadkoo dhan isugu yimaadaan inay ku waxyeeleeyaan, kuma waxyeeli karaan ilaa wax ilaahay uu kuu qoray maahana tabaaraka wa tacaala. maxaa yeelay ruficat alaqlaam wajafat الsuxuf, qalimankii ayaa la kor yeelay, warqadihii wax lagu qorayna way engegeen. ayib, yaqiintaasaa la rabaa qofka inuu ku kalsoonaado rabbigiisa. qadarkana wuxuu ka mid yahay rumayntiisa min arkaani اliimaan. arkaanu اliimaani wuxuu ahaa 6: an tu'mina biاllah wamalaa'ikatih wakutubih warusulih walyowmi اlآakhir wabilqadari khayrihi wa sharih. qofka muslimka ah ee iimaanka laga helay, ee mu'minka ah, rabbigiisa rumeeyey tabaaraka wa tacaala, waa kan 6daa iimaan laga helay. allah ayuu rumeeyey tabaaraka wa tacaala, malaa'igtiisuu rumeeyey, kutubtiisuu rumeeyey, rusushiisuu rumeeyey, maalinta aakhira ayuu rumeeyey, ma arkaysa, iyo qadarka ayuu rumeeyey, qadarka ayuu rumeeyey, khayr iyo sharba. saas darteedi marka qofka muslimka qalbigiisa waa degan yahay, ma walwalayo, ma walbahaarayo, wax walbo ay ku yimaadaan, sabr iyo dulqaad buu u leeyahayba. ayib, haddaba waxaa jirta marka
asbaabu lwiqaaya, cudurkan waxyaabaha laisaga ilaaliyo sababihiisa. sababaha waxaa ugu weyn kahratu الصalaaةi والsalaam calى sayidi اlanbiyaaءi wاlmursaliin salى اllahu عalayhi wasalam. salliga in la badiyo oo mar walba ma arkaysaa salliga nabiga in afka lagu haayo. maxaa yeelay qofka salliga badinayo waa qof hamigiisa iyo walwalkiisa la kaafinayo, waa qof dembigiisa la dhaafayo. nabiga ayaa yihi salى اllahu عalayhi wasalam, ubay ayuu ku yiri markii uu ubay yiri, aniga waktigeygii oo dhan adaan kugu salinaya yaa rasuul allah. faraaisha iyo gudashadeeda iyo hurdadii waxaas markii waajibaadka kale aan guto, inta kale waktigeedii sali un baan ku bixinayaa, adiga un baan kugu salinayaa yaa rasuul allah. nabigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam, idan tukfaa hamak wa yugfara dambuk. haddaad sidaa samaysid ubayow, hamigaagii iyo murugtaadii iyo walwalkaagii walbahaarkaagii waa lagaa kaafin. walwal iyo walbahaar iyo adiga is arki maysaan, dembigaagina waa lagu dhaafayaa. adduunyada walaalayaal wax la raadayo waxaa ugu weyn hami iyo walwal iyo walbahaar in lagaa kaafiyo. adduunyada walwal iyo adiga inaadan is arkin, inaadan walbahaarin, taas waxaad ku heli kartaa bikahrati الصalaati والsalaam calى rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam. salliga nabiga badi 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 calayhi الsalaatu wasalaam. aakhirana wax la raadiyo waxaa ugu weyn gufraan الdunuub, dembiga oo lagaa dhaafo. taasna waxaad ku heli kartaa salliga nabiga inaad badisid calayhi الsalaatu wasalaam. idan tukfaa hamak waa adduunyada, murugoo dhan waa lagaa kaafinaya. wa yugfara dambuka, dembigaagina waa lagu dhaafaya qiyaamaha. allah aaway salliga nabiga salى اllahu عalayhi wasalam inaad badisid, mar walba carabkaaga inuu la qoyanaado الصلاaة والسلاaم على الرasuuل صلى الله عليه وسلم. nabiga wuxuu yihi عليه الصلاaة وسلاaم, man صلىa عalaya صلاaة waaxidة صلى الله عaليه بها caشhرا. qofkii hal mar igu saliyo ilaahay 10 jeer buu u naxariisanaya. 10 jeer ayuu ilaahay kuu naxariisanayaa. raxmadaasaytii ilaahay xaggiisa kaaga imaanayso, korona dhan way kaa baabi'inaysaa. raxmadaa min allaahi kaaga imaanayso, wabaa iyo cudur is arki maysaan. raxmadaa min allaahi kaaga imaanayso, cudurkaa koroonaha ilaahay baa kaa ilaalinaya subxaanahu watacaala. maxaa yeelay qof waxaa tahay raxmad ilaahay dushiisa ku socda, raxmad ilaahay dushiisa ku daadanayso, raxmad ilaahay dushiisa ku qulqulaysa ayaa tahay. yaa kaa nasiib badan, yaa kaa qiimo badan. waxaad ku dheefsatay, ku macaasanaysaa kahratu salaati wasalaami calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam. kolka sababaha laisaga gaashaamada waxaa ugu weyn nabiga salligiisa oo la badiya calayhi salaatu wasalaam. ayib, waxaa kaloo u imaadaa marka xagga nadaafadda, gacmahaagii inaad dhaqdid, saabuun iyo wax walbo inaad gacmahaagii ku dhaqdid. banaankaad soconaysaa, bir baad qabanaysaa, baabuur baad fuulaysaa, ma arkaysaa, wax baad gacmahaagii ku shaqaynaysaa. gacmahaagii shaqay qabanayaan, wax walbaad ku qabanaysaa. markaad dhamaysatid gacmahaagii dhaq, saabuun ku dhaq. walidaalika markaan raashin cunayno waa tallanoo jiray gacmaha inaan dhaqno, waa weysaysanayna gacmahaan dhaqaynaa. addiinu diinu nadaafa, diintaan aan haysano walaalayaal waa diinu nadaafa. ma arkaysa gaalada markay leeyiin gacmaha la dhaqo, waxaasayti islaamkay ka soo qaateen. markii la hindhisoonayo cimaamada ama tiish ama wax un saas u saar, ku hindhis. maxaa la diidayaa intaas? haddii cudur iyo hergab waxaas ay kugu jiraan, waxyaabaha kaa soo baxaya sankii afka ka soo baxayaan, fayruusyadaasaytii in dadka kale uusan u gudbin. ma arkaysaa? saas darteed waxaa lagu jireeyey markaad hindhisaysid cimaamada ama maro sankay afka inaad ku qabatid, codkana inaad caburisid, dadka inaadan ka naxsan. aadaabtaas yaana baray, nabiga ayaana baray sala allahu calayhi wasalam. markuu hindhisoonayo cimaamadiisa iyo gu-iisa intuu san ku yidhaahdo ayuu codkiisana caburinayay. dad qaarkiis waxaad arkaysaa markay hindhisoonayaan qayli meesha ugu dambaysay hindhisow wuu kaa naxsanayaaba. war maxaa dhacay? maba garanaysidba, ma filanaysid. saas darteeda marka codka in la caburiyo, waxa kaa soo baxayane maradaasay ku eg tahayba, khalaas wax faafaayo ma aha. marka
waxaasoo dhan waa min tacaaliimi diinina, min tacaaliimi islaamina, islaamkeena tacaaliimtiisa weeyaan. islaamkeena tacaaliimtiisa aan ku dhiganaano walaalayaal. xumaanta iyo macaasidana aan iska ilaalino. xumaanta iyo macaasida waxay sababayaan cuduro. zinada hadday badato cuduraa imaanaysa aan horay loo arki jirin. nabigaa noo sheegay sala allahu calayhi wasalam. sidoo kale qofka haddii uu amri waayo macruufka, xumaantana uu reebi waayo, ilaahay wuxuu kula soo degdegayaa, uu ku soo dhowaanayaa ciqaab xaggiisa ka ahaatay. marka wanaagga in laga shaqeeyo, munkarka in la reebo, xumaanta in la reebo, macaasidana qofka inuu ka fogaado, uu ka dheeraado ayaa loo baahan yahay mar waliba. saas darteed walaalayaal, waxaan isku boorinaynaa arrimahan tilmaamaha aan soo sheegnay. waxa muslimka laga rabo zamankan hadeertaan aan ku jirno fii zamani wabaa'i corona, tacliimaadkan aan sheegnay qofka muslimka inuu ku dhiganaado, wardiga inuu badiyo, qur-aan akhriska inuu badiyo, ma arkaysa yaqiin ahaan inuu u ogaado waxaan waxba inaysan dhibi karin. ilaahay amarkiis unbay wax ku dhibi karaan. laa daara walaa naafica ila allah. wax dhibi karo male, wax anfici karo maleh ila allahu jala jalaaluh. ilaahay maahana subxaanahu wa tacaala. ilaahay waxaan weydiisanaynaa cudurka ay balaayadan ilaahay caalamka iyo muslimiinta inuu ka rafciyo. allah alxamdu lilah wthanaau lilahi wsalaatu wasalaamu calى rasuuli اllah salى اllahu عalayhi wasalam. allahuma ina nacuudu bika min albaras wاljunuuni wاljudaam wmin sayiءi اlasqaam ya da اljalaali wاlإkraam. allahuma ina hada almarad almusamى bcorona jund min jundik tusiibu bihi man tashaa watasrifuhu can man tashaa fasrifhu cana وعن المسلمين فاصرفه عنا وعن المسلمين فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.